Bismillahirrahmanirrahiim. Wajigaaga ma ku aragtay finan afka ku wata wax cadcad oo malax u eg oo mar walba aad ka tuujisid? Sidoo kale ma isku aragtay finan afka dhibic madow ku leh ama inuu dulaalo oo kale? Sidoo kale kuus adag oo wajiga ka soo yaaco kadibna haaro u yaala? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ay ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Finanka ugu badan ee wajiga ka soo baxo waxaa loo yaqaanaa acne. Af Soomaaligana waxaa lagu dhahaa findoob. Waa nabro yaryar oo ka soo baxa sanka dhinacyadiisa ama wajiga oo idil, waxayna ka dhashaan qanjiro maqaarka ku dhex abuuran oo aad u yaryar oo soo saara dufan maqaarka subkiya. Qanjiradaas ayaa afka ka xirma kadibna way bararaan, markii la riixana waxaa ka soo baxa wax cad oo adag oo dadka qaar ay moodaan malax. Findoobku wuxuu ku dhacaa wiilasha iyo gabdhaha intaba, wuxuuna ku badan yahay xilliga ay qaangaarayaan. Meeqa nooc ayuu u kala baxaa findoobka? Marka ugu horreysa oo finka soo bixi rabo waxaa la dareemaa meel jirka aan la sinnayn oo kasoo kacsan, waana astaanta ugu horreysa ee la dareemo inta finka uusan soo bixin, waxaana afka qalaad lagu dhahaa comedones. Waxay arrintan dhacdaa markay duldulaalada wajiga oo aad ku yaryar bilaabmaan inay xirmaan. Waxaana jira waxyaabo badan oo xiri kara, kuwaas oo aan ka hadli doono, waxaana loo yaqaanaa comedogenic. Sidaa darteed, waxyaabaha la isku qurxiyo oo aad wajiga u isticmaali rabtid waa inay noqdaan non-comedogenic, taasoo macnaheeda ah duldulaalada wajiga aanan xiraynin. Shirkadaha qaarkood way ku soo qoraan waxyaabaha ay sameeyaan oo maqaarka loo adeegsado. Waxaa ku xiga oo dadka qaar isku arkaan fin afka hore ka furan, waxaana loo arkaa sidii dhibco madow oo kale oo wajiga ku firirsan, waxaana loo yaqaanaa blackheads. Markii aad loogu dhawaadana waa sida godad yaryar oo aad moodid in la dulduleeliyey. Waxaa kaloo jira finan afka ka daboolan oo kuusma, waxaana ku jira wax cad oo jilicsan oo dadka qaar ay iska tuujin karaan, waxaana loo yaqaanaa whiteheads. Tan wax dhib ah badanaa ma reebto, markii la tuujiyo maalmo kadib way baaba'daa, caadi ayuuna wajiga ku soo laabtaa. Waxaa badanaa lagu arkaa sanka dhinacyadiisa iyo garka. Mararka qaar meelihii dufanka ku xirmay ayaa caabuq yeesho, waxaana lagu fahmi karaa in xanuun la dareemo markii la taabto. Haddii la tuujiyana wuu ka sii daraa oo barar iyo xanuun ayuu keenaa. Finankuna si dhaqso ah ayay u faafaan, wayna gaduudataa meesha la tuujiyey, waxayna reebtaa haar ama madow wajiga ku hara. Waana muhiim inaadan tuujin fin xanuun leh oo jirkaaga ka soo baxa. Tani waa khalad ay dad badani ku dhacaan. Finka markuu sidaa noqdo waxaa loo yaqaanaa papules ama pimples, lamana taabto. Haddii aad tuujisid finkan, wuxuu isu beddelaa wax loo yaqaano pustules, tan oo ah fin malax gashtay. Weli waa muhiim inaadan taataaban oo aadan ka dhiijin malaxdaas, haddii kale wajiga wuu ka halaabayaa. Waxaa jiro daawooyin loo qaato markay xaaladdu halkaa gaarto, waana muhiim inaad dhakhtarka maqaarka la soo xiriirtid. Laakiin inta ka horreysa siyaabo dabiici ah ayaa loola tacaalaa, sida aad ku arki doontaan qaybta labaad ee aan soo gudbin doono. Haddii finka ay wax ka soo bixi waayaan oo uu sii bararo, wuxuu isu beddelaa xaalad loo yaqaano nodules. Qofku wuxuu wajigiisa yeelanayaa kuuskuus adag oo tiro badan, waana qasab inaad dhakhtar la xiriirtid markay sidaa noqdaan. Maxaa keena findoobka? 1. Daawooyinka qaar ee wajiga la mariyo. 2. Heerka hormoonada qofka oo kacsan, weliba hormoonka loo yaqaan androgen, kaasoo lala xiriiriyo soo bixidda finanka wajiga oo ku badan dhalinyarada, xilliga qaangaarka ama waqtiyada haweentu ay uurka leedahay. 3. Bakteeriya ku dhalata wajiga oo findoobka caabuq gelisa. 4. Qanjirada dufanka wajiga oo aad u shaqeeya. Haddii qanjirada soo daayo dheecaanka subkiya maqaarka ay aad u shaqeeyaan, waxay keeni karaan in saliidda ku xiranto, sidaasna ay finan ku samaysmaan, waana sababta finanka ugu badan yihiin dadka leh waji saliidka. 5. Diiqada, walwalka iyo fakarka. 6. Hurdo yarida iyo hurdo xumida waxay ku jirtaa waxyaabaha ka qayb qaato findoobka. 7. Cabitaan yarida. Dadka badanaa aan cabin biyaha caadiga ah way ka finan badan yihiin dadka aad ku caba biyaha, waana arrin cilmi baaris lagu ogaaday, sababtoo ah dadka jirkooda uu leeyahay biyo ku filan badanaa ma xirmaan qanjirada dufanka ee jirka ku yaallo. 8. Cunooyinka qaar oo lala xiriiriyey findoobka sida shukulaatada, jibsiga ama baradhada la shiilay, macmacaanka, rootiga cad, baastada iyo cabitaanada aashitada leh. 9. Alerjiga iyo xasaasiyadda. Dadka qaarkood wuxuu jirkoodu ka falceliyaa waxyaabaha ay cunaan ama ay marsadaan. Ugu dambeyn, findoobku waa dhibaato ay ka sheegtaan in ka badan 85% dhalinyarada, mana ahan cudur halis ah. Dhibaatada ugu weyn uu keeni karo waa wajiga oo haare yeesho, dhaawac nafsi ah, niyad jab iyo ka go'ida bulshada. Casharka soo socda waxaan kaga hadli doonaa sida looga hortagi karo findoobka iyo waxyaabaha dabiiciga ah ee lagula tacaalo. La socod wanaagsan. Wixii su'aalaha noogu reeb qaybta commentiska, waana mahadsantahay.